الله الصلاة والسلام على رسول الله. waxaan idin la qaybsanayaa maanta qiso markii aan Mareykanka aan ka tagay hadda ka hor aniga oo u socda Yurub gaar ahaan Sweden Stockholm. qisadani waa markii diyaaradda la iga dajiyay. waxaan ugu magac daray dulmigii ka duldhacay diyaaradda korkeeda. marmarka qaar waxa dhacda in midabkaada lagu naco. marmarka qaar waxa dhacda diintaada in lagu naco. marmarka qaar waxa dhacda aksankaaga iyo lahjadaada iyo luqadda Ilaahay kugu galadeystay dadka qaar inay kugu cunsuriyaan oo kugu nacaan. markan waa midabkayga iyo diintayda. sida caadada ah walaalayaal diyaaradaha laga raaco Mareykanka ee Yurub aada waxay qaataan waqti badan, security-gana aad baa loo adkeeyaa. waxaa dhacday in aan diyaaradahan ka raaco diyaaraduhu kala sharaf badane Imaaraadka miyaan raacay waa maya, Turkish maan raacin waa maya, maanan raacin Qatar Airways oo maanan raacin diyaaradaha sida Norwegian iyo SAS iyo British Airways iyo Air France maan raacin. waxaan raacay markan waa KLM, waa asalka cunsuriyadda iyo Dutchland iyo Holland. waxa loo noqon doonay diyaaradda KLM sida caadiga ah walaalay waxaad aragteen waxay calaaqad leedahay diyaaradda Kenya Airways oo marka Afrika la tagayo ama Nairobi la tagayo waxa isu ka bedela oo ay ka dhaxaya cooperation iyo tacaawun KLM iyo Kenya Airways. diyaaradda KLM ayaan goostay, ticket ayaan goostay, xagana socdaa waa Yurub. markan aan diyaaradda raacayo koofiyadda sunnada ama qabo khamiiskana ma xidhni. wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo ma taqaanaa shaati yar iyo xiran baan ahay, iska normal ah, baag yar wata oo safraya. dadkaas aan ka mid ahay. weligayna wax karaama iyo dambi ah kumaana dhicin. maxaa dhacay haddaba? waxaa dhacay diyaaraddii markii aan soo fuulay oo diyaaraddii cirka ay gashay oo ay hawada gashay oo ma taqaanaa almost 6 hours hawada aan ku jirnay ayaa waa taqaanaa diyaaradaha waxa ka dhex shaqeeya islaamo ama gabdho waxa ka dhex shaqeeya iyo niman isugu jira oo kuwan hoosteelkooda aragtay ee dadka dhex wareega hoosteejyada ah, dadka dhex wareega ee cuntada u keena marka ugu dambeysana wax ka iibiya. cuntadii baana loo keenay. aniga muslim baan ahay, cuntada aan dalbanay waa in xalaal noqotaa. vegetarian baan qaatay, wixii kale iska ilaaliyay. diyaaraddii markii hawada ku jirto cuntadii aan cunnay kadib ayaa aniga sida caadada ii ah markii aan safrayo oo aan safar intaa le oo kale aan safrayo waxaan ka faa'iidaystaa jaanis cajiib oo adigana aan rabo inaan ku baro. jaaniskaasi waa maxay? haddii aad safar dheer aad galayso dhulka aad marayso waxaa laga yaabaa weligaa inaadan marin oo dambe, laakiin athar kaga tag. waxaad kaga tegaysaa cibaado ku dulmar, adkaar ku dulmar, qur'aan ku dulmar, xuska ilaahay ku dulmar. dhulkaas aad ku dulmarayso idil yowma alqiyaama waxay kuu markhaati kacayaan oo ay shaahid kuu noqonayaan in aad ilaahay subxana wa taala aad ku caabuday. yowmaidin tuxadisu akhbaarahaa buu yidhi subxaana wa tacaala. waa maalin dhulku akhbaarteeda ay sheegi doonto. waa maalin uu kuu markhaati kici doono. adna waxaa laga yaabaa inaadan weliga dhulkaas aadan soo marin. jaanis aad ka faa'iidayso markaad safar dheer aad galayso. kor xitaa ha u dhawaaqin. ilaah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waduuna aljahri min alqawli bilguduwi waalaasaali walaa takun min alghaafiliin wadkur rabbaka fii nafsika tadarrucan. xus ilaahay subxaana wa tacaala adiga oo ma aragtay korna aan u dhawaaqaynin oo afka aan furaynin, hoosna aan si dhexdhexaada ilaah subxana wa taala u xus bilguduwi galabkii iyo walaasaal mataqaanaa subaxdii iyo galabkii walaa takun min alghaafiliin kuwa qafladda galayna ha noqon buu ilaahay subxaana wa tacaala. diyaaraddii walaal markay in yar socoto oo hawadii aan ku jirno ayaa waa taqaanaa waxaa jira joornaal la fiirsado oo waxyaalaha diyaaradda lagu dhex gada iyo safety-ga laga daawado. bog waxaan arkay xayeysiin ah saacad baa marka ku dhex taallay meesha. saacaddaasi waxay ahayd almost €280 ayay ahayd. lacag $700 ku qiyaas karayaa. waaga iyada ah Apple Watch iyo waxaan ma jirin. saacaddan waxaan ku doortay waxay ahayd kaamarad bay dhexda ku leedahay. saacaddii baa hadhow markii naagii ii soo mareen meesha ama gabdhii meesha ka shaqaynayay ayaa waxaan ku iri saacaddan ma haysaan? haa waxay ku jirtaa baalka aan riixayno bokaska, waa la soo bixiyey, viisakaarkii aan u mariyey, saacaddii baan ka iibsaday. muddo yar markii aan saacaddii aan wadwatay aan sawiraan iskaga qaaday waan maasha allah yacni saacaddu picture bay lahayd, videona way lahayd. hawshii aan rabay ayaan ku qabsaday. maxaa dhacay haddaba? naagtii meesha iga gaday ninkan madow ee diyaaradda wax ku dul iibsanaya ee muslimka ee habbiga aan ka jajabnayn dee qofka ilaahay xusay subxaana wa tacaala qalbigiisa waxaa ka soo baxaya farxad, wejigiisa bishaaraad baa ka soo baxaya. malaha waxay isa siin weyday ninkan madow ee habbiga ah suu habbi ku noqday. naagta iyada ahayd way cusriyeysay oo say igu cusriyeysay. waxay samaysay meeshay tagtay waxay tiri we are not feeling safe. ninkaasi waa muslim
lambarkayga soo ogaatay waa muslim, we are not feeling safe. aniga waa iska hurda adkaar, waa iska akhrisanaya, waligayna boolis ima xirin, records maana samayna xumaana marka intaan qurbahan joogay ismaanan arkin. in iska saalima musaalima nabadda dacwada khayrka islaamnimada ka shaqeeya qurxinta diinta ayaan ahay. maxaa dhacay haddaba? waxaa dhacay markii tiri diyaaradii dee evidence waxba liiguma hayo, waxba mayn samayn. diyaaradii waxaan ka soo degnay meesha la yiraahdo Amsterdam. walaalayaal habeenkiisa ayay ii soo xusiyay subaxdii markii ay soo dhowdahay ee hurda ila tagtay. salaas wax ma tukanin, suuli ma galin. anigu waxaan ku war helay anigu Amsterdam soo degnay iyo dadkii online-kii u istaagay diyaaradii oo laga dagayo. anigii meeshii gabkaf baan kaga soo degay. diyaaradii kale 40 minutes baa iga dhiman ba 1 hour baa u dhaxaysa, laakiin inta aan checking ka soo maray iyo lane kale maray iyo tii kale Stockholm aadaysay 40 minutes ayaaba iga dhiman. soo orod diyaaradii kale agtiisa imow. meeshaan soo istaagay diyaaradii kale markaan raacay marka musiibadu hadda dhacaysa haddaba. naagtii tan waxa iga qaadayso ma aha, waxa weeyaan warqad bay ii raacisatay kale. ilaan kuban meesha waxbay arkaan, warqad kale hoos la iga sii diray. diyaaradii kale marka aan soo aaday ayaa waxa dhacday mobilkayga marka waxaan ka akhrisanayaa waaga ayada ahayd Hiiraan online baa soo qortay oo ka akhrisanayay wiil Soomaali ayaa Washington lagu diray oo waliba jaamacad dhiganaya, jaamacadda laga soo tuuray waa la cidiyay. marka familkooda waxay leeyihiin wiilka Allahu naxariistay, wiilka naga Suudiya loo diray diinta lagu diray, muslimiin bay u dacwooneen. wixii baan akhrinayaa marka waxaan akhrinayo waa iska wataa. almuhim diyaaradii baan soo galnay, kursigii baan fadhiistay. intaana fadhiisan wixii baan dhigtay, baagii baan saartay, suuligii baan toos u aaday. ilaa in xalay waxaan ahaa ana suuli soo galin. suuligii baan aaday, waan ku soo cadeeday, waan ku soo weysaystay. diyaaraddu wali ma kicin, diyaaraddu wali maysan kicin. maxaa dhacay haddaba? intaan suuliga ku jiray ayaa durba meeshii suuligii irdiisa la soo istaagay. suuliga diyaaradda waa taqaanaa markaad ku dhex jirto leer yaro cas buu ku tusinayaa, leer yaro gaduud ayuu ku tusinayaa. leerkii waa green. haddana waan xidhaa, waa liigu furaa, waan xidhaa, waa liigu furaa. hore waan soo baxay. markaas soo baxay yaan waxaan arkay nin isku dhakinaya albaabka dhinaciisa. shaki baa yarga laakiin xaru dib malaha, waxa laga caloosha wax laga haye. waa iska soo baxay. kursigayaan fariistay. ilaa kursigan aan fariisanayaba laba qof saaba meesha la sii fariisiyay oo leeyl cala ninka hadduu iswaala qabta camal. meeshaan fariistay waxaan la soo baxay mobilkayga wali Hiiraan iyo waxaan akhrinayaa article-kii akhrinayaa. ilaa waa la ila akhrisanayaa. waa la ila akhrisanayaa. maxaa dhacay haddaba? walaalayaal qofka muslimka ah waa qof walba saabit ah, waa qof aan ciidan Ilaahay ka eehay subxaanahu ka cabsanin, waa qof dulmiga ka fog. haddaadan weligaa dulmi ku dhicin, dadna aadan dulminin, wax ma taqaanaay aana ahna aadan ka cabsanaynin, caabidna Ilaahay ku xirna aad tahay, weligaa iyo Allah farxad baad ku noolaanaysaa. anigu waxanba kama warhayaba, fikir iyo dhikri. anigoo sidii u fadhiya ya diyaaradii waxa way dilay ku dhacay. maba duulaysa diyaaradii, dadkii waa saaran yihiin. markaas anaga dhan warkaan sugaynaa, ma khabar baa la sheegi doonaa, ma diyaaradda cilad laga sheegi doonaa, ma hawada cilad lagu sheegi doonaa. aan kugu daray ee maalmahaas iyada ah Paris waxa ka dhacay ficil argagixisnimo ayaa ka dhacday. maxaa ka dhacay? ninba dadka wuxuu jirsiyay baabuur samatrayka aw dad mudaaharaadaya sida ka dhacday shalay Mareykanka oo kale ayuu dad jirsiyay 200 wax buu ku dilay. marka Euro oo dhan baa qasan. qof walba muslimane maalmaha waa iska target. adoo bas iska saaran ayaa wax lagu leeyahay I'm not feeling safe, waba laga dajinayaaba. tare adoo saaran ayuu qofku ugu xumeynaya ku nacaya I'm not feeling safe, waba lagu dajinayaaba. meel kasta marka saas ay hawsha ka socotaa. maxaa dhacay haddaba? waxaa dhacay iyo markaan fadhiyay ayaa crewgii diyaaradda ka shaqeynaya waxay isugu tageen meel hore oo hortaanada ah. wax yar kadib naag madow baa la ii soo diray. intaan naagta madow la ii soo dirin baa 8 horta boolis aad meesha soo fuulay diyaaradii. annagana boolis markaan aan wada naxnay talo maxaa dhacay? ma daroogo, ma tuug weyn baa la qaban doonaa, ma nin gaangisala nala saaran. gadaalaan saa wada fiirin, mar booliskaan fiirna mana gadaal. nin walba daasaa iska eegay, nin walba saasuu leeyahay. saasaan eri saab anaa farta ligu soo fiiqayaaba. man that one, you know that guy, kaa Soomaali wasan gudhuuban that guy ali soo leeyahay. markaasaan waa shaki dee waa taqaanaa dareenka durba dareenkayga iyo ma taqaanaa feelingkayga wuxuu ii sheegay in aniga ligu soo wajahan yahay. waa arkay اللهم إني أسألك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. هذا الدعاء markii cadowgu ay ku dhibaateen rabaan ama lagu dulmin rabo wallahi muhiima. maxaa dhacay haddaba? naag madow ah ayaa la ii soo diray oo Kenyaan ah. tiiba ii timid. Excuse me sir, are you Ahmed Haji Hussein? Yes I am. Haye, can you follow me please? What? Can you follow me? Why I'm following you? Why I am following you? anigoo markaa su-aashii weydiiyey booliska ma soo dhaqaaqeen ma waa la soo dul istaagay. Sir, get up and take your luggage. istaag luggage-kaadana soo qaado. masaasaha okay sir,
وأنا استاجي أنا مرة ضدك الماشي إلى صارن إنا أرجع حقلي مرة إنا بوكو نحفر مرة إنا إسوالا مرة أنا وان إسهوبا ما حد عي هذا باقي بسوقاتي وان كسر دقني بوليسكي يعني صور عني مركي ديار ساعة وصل دقني أبابك ديار دحرتي وحيقول لهم do you know why we pull you over متى أنا وحن كوسو كهذا سود دجنا ديار ده مركز وحن كورا I think one reason هل الشيء بدي سود دجيسين أو ما حي وحن كروح نقول ملينا يا مجا عيجة أحمد حسين علي أحمد حاج حسين أنت بعد مسلمة لقيت الدمي أو اللي هيت قرينا يا وحكة أو ملينا يعني والله ويس إيجان عدان كويس يقانان ويس فيريان وحيدان we think so أنا أساسا ملينا the captain call us يكوب ديار ده وحيدان we are not feeling safe أنا safe ما دري منه نقدر مركا وحى سميسا ديار ده إسكا جحر سان أجهرا وديار ده ودعوين يا واي مين بدعوين كرتي سبب فهل يقرأ أو بي هل يقرأ أو فيل هل يقرأ مايا أنا حريد كمان نقادم هدي مركي أنكو سوكرني أدنى ديدي لهين وسوكا جبين لهين أنكو جابين لهين أنكو جيدي لهين ودعوين اللي حريد لقى قادم لكن حريد لقى ما قادم كوبريشن بدنا لا سميسه وادنا تعاون بدنا لا سميسه استاك وادنا صور رعد وادنا لا شقيسي صو حوش وحلني دعوة ماشي ما بتعلبه أرد ما يميلي ودعوين يا واي ما يمدعوين كرتيت هدادنا ديدي لهين markaas waxaan ku rahay hadaan idin diidi lahaano snabi lahaa awal baa wad iga sheekaysan dad meesha ugu toogataan ka warma guys midaa wuxuu yiri wallahi taaba way dhici kartay inaad soo raacdo ku fiicnayd saari ilaahay baa i waafajiyay guys xilligan ma sha Allah nin agxisaa diyaarada lagu dhex dilay ama ajiib muslimka sumcadiisii aniga noloshaydii gaaladan dacwadii wax dhan bad qasmi lahaa la xawla in ka soo janna ilaahay dirtii adiga wax sameyn lagu dhibaatayo jannaba ay ku dambayso oo dulmi lagu dilo maxaa dhacay hadaba waxaa dhacay booliska waxaan ku iri maya waa inaan diyaaradda kala adeegaysaan the next diyaaradda raacaysa hay ina keen diyaaraddii kale ay keeneen counterkii ay keeneen diyaaradda kale laga raacay meeshii nimid waxaa idinka diyaaraddii hore diiday kabtankii marka ilaahay amarkii diyaarad kasta 1 hour u dhaxayso tan iga tagtay kala 1 hour ku xigto every hour tu kala baxayso cusub tii dambaa la keenay tii markii la keenay ayaa waxa dhacday naagtii meesha ka shaqeynaysa waxay tiri gabadhii aan dhahay ho متقنا طبعا كان يوراني جفتي أهانو قال سوري هالك شاه كعب أنت تكلك لجاري وياه واللي حال مريا وسيدي بين مع حالته كل ماتي وانصباحي شاهيا متقنا يسوقتي دق إلا برايك رئيس الدنبيس باش صوبة كما قرنبا إلا أنت كان مرة ديكو فيريا واسيكو دم السعودية إلا هذه يعس كده أما عدارها شو أما سيدي جورج فلويد مظاهرات لو سميه وإذا كان ركومر يعني إلا معميل تيك لواتنا مركي لجاروان إمد marka dabciina raaco ayaa meesha waxa lagu badlaban inuu xoog weyn oo body car oo la diyaariyo warnimankan waa maxay sar annaga diyaaradda security-geeda nahay hadii aad raacayso hararahan ka fariisanayna otherwise waa iska joogi kartaa tu kala raac warda diyaaraddan waa diyaaraddeeda no way sir maxaa dhacay waxay dhaheen maadaama laga xanaajiyay oo diyaarka aad raacayso tana ka aarsan kartaa oo waliniyahum idaba socotaan war ani marka hore dhib ma wahdan xumo aarsanayo war aniga ma cunug teenager ma ihi wixii waan dareemaya qof ay ugu xumeeyay hawshan laakiin anigu waan ka soconaya no saas raali ma ku tahay hareeraha haye soo fariis hareerayga waa yahay nakeena waa daalanahay mar la yaa Stockholm ku geeyaan taaganahay diyaaradii kale aan soo furnay hareeraha la iga fariis intaan hawada ku jirnay mid kamid la sheekaystay how are you sir ee waran ka waran masaarad u shaqaysaa haabi urniyahoone the good news waxa weeyaan buuri ani adiga 1 hour leen kula soconaya hal saac leen kula soconaya dadka qaar baan saa u garafadinaa buri ilaa Japan إلا ماليزيا سأقرفنا دال فيروس كل رفضنا موقف نول بعد ما أنت دارين كرتا مركني يعدوا إسكا 1 hour ودك أو سعتاد آليسا إسكا دول قاضو واي هل كي بنقول شيء كيسونو دينتي أنا أقول شيء كيو قرآن كان قرأ وآخريو أنا قاعد أدوح ما دام إسلامي مرة اللي يقوم دعوة دي يا خير كي نور كي قد الدلي ما شاء الله إلهي كلي عابد ودعوة ما شاء الله سي لا إله إلا الله you gonna success واد ما تقنا ليباني ساي وأكون قبت أنه حق ما شاء الله الله أكبر diyaaradii markay Stockholm aan ka soo degnay airportkeeda Orlando aan ka soo degnay Stockholm ayaaba haddana maxaa waay booliis kala hadana meesha lagu diyaariyay ajiib badana war waxan xagee mataqana ka dhamaata xagee iska socota xagee soo socota ilaahay subhanahu wa ta'ala cadaalada uu jecel yahay dhulmigana ma ogola mar walbana waxa la helaa dadka u gargaaro oo dhaliminta celiya oo qolo walba leh saatirid nabiga kaleey salaatu wasalaam markii quraysh ay dhulmisay oo gaaladu ay dhulmisay نبيو قال كانوا أدرس حبيسي وحكيري أرضي أرض حبشتك لأن فيهم ملك عادل بحاجة بقر عادلة وحالها لا دولة عادلين أو قال
دولة عادلين أو مسلمين دولة عادلين متقناي ظالمين أو دكتاتور أو مسلمين دولة ظالمين وقال ومدو اسكت حجفتها عدالة ما كان يصاب حيسا ما حد عي هذا بقى مركي أن إيربوركي نمد أو بوليسكي هوس السوريان أيها واحد عيدات كده بعد ديار ده مركب وديار كمان دون تلاقوا حرامها هو ديارها قرونك راح يسوي استاجة إيه جرنجرة إيه سلانك اللي يقدمه dadkii baa degay bas baa lagu qaaday anigii markaan meeshii ka soo degno albaabkii aan soo istaagnay laba nin baa reeraha iga taagan sidii tuugo kala ma arko waagi aan yeelay marka qofka gaal sharax laga soo daayo ama muufiyada aan daawanayno ama taqaanaa khaa'imiinta ama laadarada wax aan daawan markaan yeelay filmaanta aan daawan jirno kala iyo wadarta qofka reeraha laga istaag bodyguard ama gaal sharax ka soo baxo laba xoogay ma taagan hoosna booliskii ay taagan markaas iyagu marka way hareen laanu ma soo dagayaan waa dad wadan kale u dhashay halkii bay ku istaag anigii baa soo dagay booliskii baan imid waxay ugu dhaheen ilaahay amarkii anigu marka wadankayga labaad baan imid anigu American and I'm Swedish both marka American waan ka imid Swedish nationality gisan haysan jiray luqadina wana qanayo kan protest Spanska yo tikro misfariya dawda miniyata ma sha Allah tawdalkayga waa waligayna crime kuma dhaxsameeyay markaan saa u soo dagay ayaa waxay dhaheen barsho numberkaaga ID-gaada noo dhiibaan u dhiibay way fiiriyay recordkii meeshii lagu waceen operatorkii waxay ninkan waa clean waxay dhaheen maxaa wax jira noo sheeg maxaa what's going on vaay sam hender vaare feel mehar maxaa khaldan markaas waxaan ku iri damsayir dunyata ab bom waxay leeyihiin wadnahaaga bam ah wadnahayga ka cabsanayaan ma gar miniyata dungar wadnahayga ayaa bugle bugbugtaasay ka cabsanayaan nothing else aniga diyaaradii hore iga reebeen tan waxa booliskii kale soo diray wali waa idiidan yihiin nimankan waa isalmayaan waxay ugu yiraahdeen welcome hemma lamna damar ediyuta dalkaada ku soo dhawow iskaga takuban waa ediyutiyaal waa bila adabin waxan oo kale saa intay u eegayeen ayagoo hortaagan gurigaada aad nimankii oo taagan baan baagigii qaatay haydo aragii baan salaanay iswiiliskii bay gurigii baan soo aaday ولا لا يال أنت أدوية تكون وسترين كعد مريسو مر والوضع كل ما يسا قف دين هذا كوكونعه قف مذهب هذا كوكونعه إسكدا هالكني أفريقيا دل كيني بانكوركا والله تارنا هيا أنا جرب وقوي إيا قلدان كي اللي قدم وينه واريا وانع بهاي كبر وحكولي أنا جرب حمر كي أبو معاونها وانع بهاي كبر كولي أنا أفرحون إيه ولن كي شيء وانع بهاي قار كوار كيس أنا جرب رجعها مقرنا سا وانع بهاي قار بحول كبر هاي منطقة ناية وين قنيسة وانع full of hate أكسن كنا ودنا كنا لسكون معاه أكسن يلا هجيد على لسكون معاه مذهب كان لسكون معاه قبلات كتير على لسكون معاه ووقع نسبة شغلات على لسكون معاه حافظ على لسكون معاه وحاصلا أدون كوي كجران لكن مرة واحد يقول يستا تذكر علم مجا عدالة استعماله كهريسي وحكسته ما أعرف كو إنسانية ده مركا عالم كله جوجا مركا ودنا كله جوجني إسلام ماذا هرمرية تذكر سوى تذكر أدون كقدام بين دونه إلهنا سبحانه وتعالى وسجد هي وأقسطوا إن الله يحب المقسطين والعدالة إله سبحانه وتعالى وجعل المقسطين ته إله سبحانه وتعالى كل عدالة كل هذا ومضر أخر سيد الله نقدره قصة ما أنت سكوس جبينا يا حلقة وحلقة كرفيو بالله من يبندوجو حافظ درس السورية إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.